hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaan ku baxay damka siiyey naaqusay damka siiyey naaqusay jacaylkii maanaa u neebduray maanaa ninkii baray ka naqaystay qayrkeed maanaa naqiyo roob nabaad leh kaa raray idarkiyo jacaylkii maanaa u neebduray maanaa ninkii baray naqaystay qayrkeed noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon maalmihii naruuradu sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dibmiyey u soo noqon maalmihii naruuradu inta uu niragi taro anigoon ka noogeyn maxaa nabarka aan dheeyey narugo dadkaas anigu aqoon ma u leeyahay gabadheedi waxyaabaha adiga sheegaysa ma jiraan wax meesha yaalan wax adiga wado maahan gabadheedi waa iska caadi waxaa lagu turjumay access tv muqdisho aabaha shaqadiisa ayaa khaldan weysay markaas kadibna wuu iska fasaxay asaga waa intaasoo keliya wax naga dhexayn karo maba jiraanba gabadhayda bas waa intaas wax kale ma jiro waxaad laamusan tahay wax ii sheegno
كدينا يعني أبو حيلة ثانية التي رأتي أنا رأت شيء لنا حتى أنت روح بكاس أول بريقة يا كل شيء بكاس جناعتي ودنك مراكبتها يا الله يا شيخ marka shaqadaasi way socon weysay ilooyin kadibna way istaagtay iyada marka colaadda halkaas ayay inooga imaatay waxayna wax kaloo jira malaha gabadhan gabadhoodana aniga aqoon maa u leeyahay rohan qof walba waxa fiidkayga ka soo baxo adiga ma garanaysa waa maya birtintaas leewa aniga ma fahmi karo waxaana su-aala maskaxda meesha ugu maadin igada dumaashi adig kaale ma wax cuntid raashinka maaha inaad ka xanaaqdo kaale soo fariis dumaashi wax cun hooy waan ku jeclahay adiga qofkii aniga igu soo socdo ina la daras diyaara u tahay soo maaha gabadhayda qofka gabadhayda iskaan dhibaato u keeno aniga waan la dagaalayaa hooy waan ku jeclahay gabadhayda ma og tahay hooyadaa waxay diyaar u tahay mar walba in ay la dagaasho adiga cadowgaaga أبو ملتري هذا قناع فلان نقطة أدي هاي أدي قناع فلان هذا ملتري أيام واحد يرتاح وش لا تقال لا تقاشين ها هاي أنا ها قبلي أنا كنت على هاي أبو أدي أنا كنت على الواد ده أنت هاي أرض كسر قبلي أرض الله يا أبو وصحنا يا هاي وين بعد أبو أنا شفت قبلي waxaa lagu turjumay Access TV Mogadisho labadooda inta ay kala maqan yihiin waxaa laga joogaa muddo hal sano ah waxaan rajaynayn labadooda isla joogo in aan aragno maantana waan aragnay maanta maxaa dhici lahaa ma taqaanaa gabadhayda wax dhici lahaa dhibaato weyn ayaa dhici lahayd soo ma oga dhibaatadaasna dhici lahayd maxaa dhici lahaa maanta odaygan qalbigiisaa jabi lahaa soo ma ogid bidaad inaan noqdo fresh waa ku baryaa tara hal mid ma fiirisay adiga rohan iyo muskaan maanta waxay ula kaheen labadooda dad isgaranayo oo kale laakiin anaga أبا أديك سيدات صدقين سوي
jeedin labadooda way sortaagnaayeen waxbana ma aysan dhicin taas micnaheedu waxay tahay annaga wixii hore inaan soo xasuusin karno wax dhibana ma dhacayaan adiga waxuna ku fakirnaado abi sidee ku dhahdayna wixii hore u dhacay labadooda way soo xasuusan karaan adiga taara waan kula yaabana mar walba fikradaada way qaldan maxba fikradayda aniga aabaan hal midaan ogaaday intoona shilka ayna gelin labadooda say u doodayeen ayay u doodayeen marka taas ayaan la yaabanayaa qoy sidee kula tahay adiga waa runtaada hadda soo ma arkay ninkayga labadooda haddii ay isqabaan iyo haddii ay ajnabi kala yihiinba mar walba way isagaalayaan labadooda maba la iskugu talagelinba adiga adduunya lee joogtaa weligaa riye kama baxdi war taaraa ma ogolaanaysa ayaan ku dhahay in muskaan iyo rohan ay wada noolaadaan ee hurdada ka kaca haddii maskaxdooda ay soo noqoto xataa iskuma laaban karaan maxaa yeelay intaysa shirki gelin muskaan iyada waxay saxiixda warqadda fariinka caddeentana waa lahaayaa ma ilowday waxyaabihii ay hore u qarisay ها فيري وورقدها فرينكا نسكان هي قعدت انا كسعيد ورقدها مكديشو هاسكو دينا غبديدنا لا كلنتان hadii aan mar dambe la kulantaan gabadheed waxaad ogaataan wajigayga cusub ayaad arkaysan ogaada taara aniga waxa ila fiican arrintan aan ruud inaan kala hadalno inay gabadheena wax xasuusinaysiiyo in kale si aan ogaano maya abi ma weydiinaysid muskaan nolosheeda hore haddii ay soo xasuusato waxaa laga yaabaa dhibaato fara badan inay la kulanto muskaan waxay rabtay ruuhan inuu furo asaga taara ilaa haddii inuusan furin isaga ma ogtahay adiga maxaa ii rabtaane shirki intay gelin ka hor gabadhayda ma ogidnaa nolosha ay ku nooleed marka waa ku baryayaa farxadeeda ha ka fogeyna adiga waa ku baryaa ninkeyga waad ujeedaa gabadheeda sidee u faraxsan tahay marka ma waxaa rabtaa farxadeeda inaad ka burburisid waa ku baryaa sidaasaa sameyni waa ku tuugaa ninkeyga fiiri waa ku tuugaa ninkeyga aniga kuma dhihin ogtahay muskaan aan tagno qaldan oo sheegno maadaama aan aniga ahay muskaan aabaheeda ana ruud wax walba inaan u sheegno ayaa nooron intaysan hadda ogaal kale ka ogaanin annaga aan socodsiin waxaad ogaataa muskaan ana ruud tiktoorkeeda oo keliya inuusan ahayn wax walbana wuu u noqon karaa adiga midaas ogow aniga maraba muskaan iyo ana ruud xiriirkooda wax burburinaayo oo dhibaato u keenaayo adiga ha iloobin muskaan iyo ruuxan xasuustooda waa ana ruud noloshiisa burburkeeda marka aniga ma siisanahay labadooda in ay kulmaan ilaa ana ruud iyo muskaan ay isku guursadaan labadooda ma kulmi karaan ma siisanahay aniga midaas taara arrinta sidaa uma fududo midna waa inaad baankaa ku haysaa xiriirka labadooda hore ugu dhexayn jira ayaa ilaa haddana ka dhexeeya xiriirkaas ma baabi'in weli adiga ha umalayn taara in mar walba lagaa cabsanayo cabsida darteed wax walba loo samaynayo ha abi aniga lagama baqaayo qof laga baqaayana ma ihi laakiin waxaa ogaataa inaan aha hooyo awlaadeeda wixii dhibay way ka hortegaysaa aniga maraba arrinta hore u dhacday inay mar kala dhacdo taara ha isku dayin mid inaad samaysa gabadheeda muskaan wax dhibaato u keenaayo anigana ha u malayna midaas in aan ka ogolaan doono aniga intaas ayaan kaala hadlayaa aniga maraba gabadheeda muskaan wax dhibaato nolosheeda u keenaayo ogow hooyo aniga waan baxayaa intee u socotaana maxaa dhacay kafeyga ayaan u socdaa aniga inaan kula hadlaayaan rabaa hooyo waan ku baryaa waan daahsanaa markaan soo noqdan wada hadleynaa maya gabadheyda kaala adiga inaan kula hadlaan rabaa soo fariisa ha intana fariisi waaya hooyo ila hadal meeqa hotel ayaan leenahay
dhisan adiga sidaan ku dhisnay ma og tahayna maxaad iga weydiine hooyo ii sheeg bal adi okay dhib ma lahan aabbaha horumarkaas sida uu ku gaaray dhibaato fara badan ayuu ka maraa asaga wuxuuna u shaqayn jiray sida militarigii oo kale dadaal badan ayuu sameeyey hooyo waxaan oo dhan maxaad iigu sheegaysaane aniga weligay sidaan ayaan ku waanin jiray gabadheyda ogow ganacsigeena aabbaha dartiisa ayuu kor uga kacay aabbaha adiga iyo rashiid way idiin baahan yihiin adiga laakiin si ilaa iyo gorme kafteerigan dadka xun imaadaan aad sii wadaysaana waxaan rabaa inaad karti yeelatid riyadaadana aad rumaysid gabadheyda hooyo maxaad sheegaysaa aniga waxaan kasoo fikir ayaan kula imaaday aniga kameeli kafteerigaad xunkaa adiga aad ka shaqaysid shaqo soo ma rabid aabbaha ayaad la shaqaynaysaa maxaa yeele asagaa kuu baahan 5 star hotel saad ugu shaqayn lahayd aabbaha ayaa ku fahansiinaya adiga ganacsigaas adiga iyo rashi ayuu idiin dambeynaya ogow hooyo maxaad rabtaa inaa ii sheegtaane si cad wax ii dhashay aniga wax aan raba inaan kuu sheego waxay tahay maama miya kafkay inaad xirtid ayaan rabaa gabadha aniga runta ayaan kuu sheegay wiil xun ayaa intuu soo galo meeshaada ayuu jeebad gacanta kugu xiray aniga marka midaas ma siisan karo mar laba dhibaato fara badan inay ku soo gaarto marka waxaan kuu sheegayaa meeshaas inaad xiraysid aniga ma ogolaanaa meesha inay furnaato waad xiraysaa hooyo adiga ma shaqada iga joojinoo si mayshaa gabadhayda aniga shaqa kaama joojinayo laakiin kafeterigaas ayaan kuu diidanahay dhibka badan aniga dhibka kuma rabo waxaa rabaa gaar ahaan aabbaha dhankiisa inaad ka shaqayso hooyo aniga kafeteriyadeeda lagama yaabo inaan xiro ma fahan gabadhayda aniga iyo aamin ma rabo aniga musiibo inay kugu dhacdo dhib walbo adiga kusoo gaaro gabadhayda waxaad u qaadataa tusaale ahaan markaad xiraysa adiga Mogadisho inaad ifaanteeda isku day kafeteriyadeed maama miya aniga iima ahan meel kafeey oo keliya ee waxa waa nolosheeda iyo mustaqbalkayga meesha aan ka gaari lahaa hooy kafeteriyadan adiga ayaa iskale waxaana ku tuugan aniga xusuusteeda hooyo wax walba oo dhex yaalan aniga ayaa gacanteeda ku soo gaday hooy maaha wax hore oo laiga sheekeynayo aniga manaha waxaad adiga ii sheegaysid adiga waxaad igu tiri gurigan waa aniga gurigeyga aniga gurigeyga ayaan u malaynayo adigana waxaan kuu malay hooyadayna hataa adiga rashiid inuu walaalkeeya aabana uu aabbahay dhabtaya aniga xitaa ma xusuusto adiga yaraanteeda sidaad iisoo koolkoolin jirtay aabba xataa ma xasuusta aniga inuu gacantayga qabtay markii aan soconahay waxaa ogaa malane hooyo aniga kafeteriadaas waa xasuusteeda laakiin idinka jaceylkiina ma xasuusto inaad jeceshaa laakiin waan dareemi karaa hooyo kafeteria oo ku baryaa kafeteriyadeeda hayga xiran hooyo oo ku baryaa gabadhayda aniga ima Thank you.
انت ان روحان فيرنينو gabadheeda muskaan farxadeeda yaan la dagaalan annaga bini aadanka hantidiisa aad u jeedidaan waa farxadiisa mar haddii iyada ay faraxsan tahay waxaan ka codsanayaa farxadeeda in aada ku hor istaagin muskaan ka fikir adiga hadda gabadheena wax ay xasuustaaba yaraatee ma jirto hal xasuus ayay gabadheena haystaa xasuusteedana waa kafateriga soo kubaryaha ka baabi'inin waa kubaryaha ka baabi'inin abi adiga waxaa sheegta waa sax waxaan sheegay qalad miyaa meeshaan aad ayay wanaagsan tahay waa meel aad u wanaagsan aniga marka hore maxaan arkuwaa meeshaan meeqa maalmood iyo hortaagan mataqaanaa aad ay u badan tahay rohan adiga mid ma ku weydiiyaan meeshaan furashada aad furanaysid gabadhaan maama miya kafateeri miyaad ku dhibaysaana mise daacaday kaa tahay aniga meeshaan waan hubaa inay noqon doonto meesha keliya aan ku faa'iidi lahaa adiga marka waxbaa gulweli meeshaan waa ku guulaysan doonaa okay ila fiiri kumayo yaa imaadee kumayo adiga halkan maxaad ka samaynay maxaan ka samayn lahaa halkaad ujeed aniga ayaa furtay aniga waan ogahay banaankeeni ku taal meel wax lagu sawiro iyo meel cafeteria cafeterigaa jooga mataqaanaa kumayaa joogto qumayana sideeda waan ognahay markay gurigeeda ka soo tagto wax kale ma qabanayso qumayda anigaa diriskeeda laakiin waa inay wax isiisaa leeja diyaarkaa maho o adigan kula hadlayaa waan la yaabana anagu iqaa waxay tahayne ana dheerataa maahan wanaagsan maria kafeyga aan ku diray keentayna adigiisa okay qorad ija ها مروها واكنا aha okay awa soo socda waxaan soo gadanaya waa soo gadanaya hadda soo gadanaa meesha ma ka heshan ku dhahay aad ayay wanaagsan tahay waa meel fiican oo kugu hambalyanaya waa maasan tahay just bye لكن هذا أثر وسوية نبدأ هذه نسبة هاي سدات هاي صوما في عمل أنا أقول حاجة الأهم هي منك على هذا هاي أكرم السنة وكل مدونة aniga run ahaantii meeshaan aad ayaan uga helay waan ku faraxsanahay meeshaan waxaan dhejinaa mataqaanaa waxa aniga aan sabriyo dhan kadibna kor waxaan ugu dhejinaa nal marka waxaan kaa rabaa inaad ugu yeertay kortiiqaanka halkan waxaan ku samaynayaa miis weyn ah waxaan saarinaynaa waxyaalaha noo muhiimsan okay meeshaan bor weyn ayaan ku dhejina waxaan ku qorayaa akaar biskili maantasaan sugayaa maalintaasne qumaydan waxay samayn lahayd inaan arkaan rabaa maalinkaas runtii aniga waan baashaalayaa rohan iyada haddii aada diiradda saaran ka waran oo shaqadaada adiga aad diiradda saartid soo beela maahana ii sheeg waa la soo wacayaan soo ma jeed
ها وحول بوا ديار امجر المكي مادام waxay arkayaan boor aakaar ku qoran yahay waxooda waa diyaar haga qaataan waa inta soo kaliya bello maasint okay aniga hooshid way dhimaatay waxa ka rabo dhaqana inaad waraaqadaha igu soo wareejiso dhaqso yoolkeedaan waxa ku dhacay murugtaas maxay tahay dukaanka markaad kireen karaan maxaan nabarka aan dheeyay narugo